بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kan waa qaybtii lixaad oo serieskani crypto serieska ahaa waxaan rabnaa maanta inaan ka hadlo waxa loo yaqaano stable coins lacagaha stable coinska oo cryptocurrencieska sida USDT oo kale iyo USDC oo kale inaan ka hadlaa rabaa stable coin waxaa loogu baxshay stable coin inay tahay lacagaan isbabedelayn bitcoinka iyo dhammaan cryptocurrency kale way isbabedelayaan hadba suuqa isbedelaya laakiin lacagtan stable coin oo maaragtay stable coin la yiraahdo isma bedesho sida USDT oo kale waxaa jirta lacag la yiraahdo USDT Tether taas ugu caansan USDT Tether oo kale halkii dollar waa hal USDT la mid ah mar walba isma bedelo marka waa lacag loogu talagalay inay maaragtay stable noqoto oo aan aysan isbedelin sababta keentay in loogu baahdana waxay tahay waagii koowaad bitcoin bas jiri jiray qofku markuu rabo for example Coinbase exchange la jiri jiray ama Mt. Gox la jiri jiray qofku markuu bitcoin iska gado marka US dollar ahaan markuu ku haysto waa inuu la baxo bangigiisa la aadaa markuu qofkii bangiga la soo aado waxaa laga yaabaa inay 2 weeks laba isbuuc inay soo socoto lacagtii ama isbuuc camal inay soo socoto qofkii kaba soo qaad hadana wuxuu rabaa suuqa inuu soo galo hadana wuu soo dirayaa lacagtii oo wuxuu soo dirayaa exchange oo kale u soo dirayaa taas marka waqtiga kaga dhumaayo sama marka lacagahan stable ka in loo baahan yahay ultimate marka stable coins kaas la sameeyay ayada ma lahan marka blockchain gooni ma lahan waxay ku dhex samaysan yihiin blockchainada oo jira sida Ethereum oo kale marka waa cryptocurrencies lacagahan stable coins ka oo USDT ga USDC mid la yiraahdo jirto oo shirkad la yiraahdo Circle ay samayso oo Mareykanka joogto USDT ga Tether mid la leeyahay waxa samaysa Tether Foundation shirkad la yiraahdo oo Mareykanka joogta waxay sameeyeen marka qaabkii ay u sameeyaan waxay tahay cash ay ka qaadayaan kaba soo qaadba $1 million cash ay ka qaadayaan markaas ay ogsiinaan 1 million USDT ogsiinaan oo waxaad ku gada kartid waa jiraan waxyaabo kale oo la yiraahdo maaragtay bond la yiraahdo oo Mareykanka oo kale shirkadaha kale bondigaas kale ay dhiibayaan kadib marka waxa la siinayaa stable coins marka bondka oo kale waa stable ayada naftirkeeda marka lacagta badanaa waxa markii si simple looga dhigo waxa la yiraahdaa lacagta USDT ga lacag la mid ah bangiyada taalo hada USDT oo kale waxa suuqa ku jira la yiraahdo ilaa 80 bilyan oo dollar lacagaha u dhiganta macnaheedu marka waxa waa 80 bilyan oo dollar lacag oo cash ah bangiga taala marka hadda tusaale ahaan waxa u soo qaadan karnaa Soomaaliya kale marka joogno ZAD iyo EFC iyo marka bangi u tagtid shirkadda oo aad $100 oo cash ah dhigto $100 ka qaadaan $100 oo waxa lagu siinayaa Soomaaliya lacag number ah lagu siinayaa sama stable coins ka USDT waa saas oo kale waa lacagtaas oo cashkaas la dhigay oo aad maaragtay heshay USDT marka badanaa anaga Soomaaliya dadka jooga anaga maadaama exchange nahay lacagahan aad ula tacaamulno waa USDT gaas oo kale maadaama ay tahay lacag aan isbedelaynin oo qofka khasaare u keenin marka anaga oo kale USDT gaas kala soo gadanaa USDT gaas ahayna qofkii markuu ku noo soo diro $100 oo kale cash oo Salaamo Bank ama bangi uu ku soo diro ama Premier ama any bank ama Dahabshiil any bank uu ku soo diray anaga marka waxaan siinay kunkii USDT asiina qofkii marka kunkii uu qaadanaya wuxuu la tagayaa Binance Exchange ama Gate.io meeshaas wuxuu ka gadanaa cryptada uu rabo ama wuxuu aadi karaa xataa Uniswap ama decentralized applicationada ah kuwaas wax ka gadan karaa marka ayaga muhiimadda ay leeyihiin oo dhan ugu muhiimsan oo loogu baahan yahay waa stability inaysan isbedelayn maadaama bitcoin isbedeli karo kor aadi karo hoos aadi karto waxa kale oo la yiraahdaa waxay u tahay buundo isku xiraysa traditional financing bangiyada caadiga ah iyo cryptada isku xiri karto maadaama lacagtu ay tahay lacag taalo bangiyada taalo ay tahay marka waxa kale oo loo isticmaali karaa dadka qaarkood isticmaalaan sida aniga aan isticmaalo kale safe zone wax la yiraahdo ana for example bitcoin haysatay bitcoin ka kor ku aaday waxa isleedahay bitcoin ki maanta hoosna uu soo dhacay laga yaabaa man rabti inaad suuqa dhan ka wada baxdid marka USDT ka dhiganaysa USDT ahana waa haysanaysaa haddii bitcoin soo dhacdo kale for example safe zone adiga ku jirtay lacagtaada ilo waa haysataa kaba soo qaado $100 oo USDT haysatay markii bitcoin soo dhacdo hadana waa gadanaysaa markaas aad ula socoto oo tii kursi aad faa'iido u heshido kale marka saddex nooc ayaa jira oo stable coins ah mid waa fiat collateral wax la yiraahdo ama cash collateral yani waxa waaye lacagtii US dollar oo bangiga geeyay qofkii markaas waxa la siiyay USDT marka dhowr nooc ah jira oo taas waa sida in sheega Tether midan la USDT loo soo gaabiyo waxa jirta mid la yiraahdo USD coin mid la yiraahdo jirto waxa jirta mid la yiraahdo maxaa oo euro laga soo gaabiyay naftirkeed marka waa lacag cash ama maaragtay wax u dhigma lacag cash u dhigma oo shirkadu ay baxshaan bond la yiraahdo oo bangiga la geeyay markaas waxa la siiyay token kan oo USDT ah
marka midaas oo kale waa fiat ama cash. Waxaa kaloo jira mid la yiraahdo crypto collateralized stable coins, yani cryptocurrency meel la dhigayo, cryptocurrency kaas ay ku base garaysan tahay. Lacag waxaa jirta marka la yiraahdo DAI la yiraahdaa jirta oo stable coin ayada laftirkeeda oo la isticmaalo. Marka waxaa qolada samaystay marka waxay ugu talagaleen waxay dhahan anaga ma rabno inaan bangiyo la tacaamulo ma rabno, marka lacag cryptocurrency ay dhigaan. taasoo kale marka laakiin adduunka popular maaha, midda adduunka dadka aad u aaminsan yihiin waa kuwan kale. waxaa kaloo jira lacag la yiraahdo algorithm stable coins waxa la yiraahdo oo blockchain-ka maaragtay lagu sameeyay oo algorithm oo isku dayaysa in ayadoo program isticmaalaysa in lacagta stable ka dhigto. For example lacag waxaa jiri jirta la jira Terra USTC mil la jiri jirtay. taas marka waxaa la yiraahdaa waa way dhib badan tahay, way collapse garowdaba. marka qaabkay u sameyn jireen waxaa waaye markii for example ay bataan dadka teerada maaragtay teerada lacagteeda oo kale markay kor u kacdo waxay sameyn jireen waxay yani Terra US dollarka oo stable coin-ka markay kor u kacdo waxay sameyn jireen marka waxay daabici jireen maaragtay Terra Luna ay daabici jireen, way gadi jireen si mar walba lacagta stable u noqoto $1 u noqoto. marka dad badan waxay aaminsanayaan taas inaysan shaqeynayn, khaasatan markii suuqa uu aad kor u aado ama hoos u aado. wayna dhacday in fact oo 2021 ahayd James 2022 ahayd markii crash garowda Luna. marka lacag waxaa jiri jirta Terra Luna la jiray $127 ayadoo maraysay hal habeen soo daadatay oo ay timid eber boqolkiiba boqol ay soo dhacday lacagtaas. marka hadda Terra Lunadii joogtay 2022 oo kale $127 ayaa hadda waxay maraysaa eber labo oo kale maraysa. marka waa qiyaas kartaa yani lacagta marka lacag saddexdaas nooc waaye lacagaha. marka mid badan dadka ay isticmaalaan waa midaan cashka ama bangiga ay taalo ay isticmaalaan. sababtay popular u tahay marka waa inay stable tahay, waa inay maaragtay degdegsiimo leedahay, dad xataa xawaalad ahaan u isticmaala. for example hadda markii China oo kale dad waxay uga baahan yihiin oo kale stable coin kaas oo ay diraan qaarkood oo USDT ah, dad Brazil oo kale raba inay lacag u diraan meesha bangiga mar lahayn USDT gaas oo kale diraan waa arkaan dad saas sameeya. dad waxaa jira wadamo badan oo Aasiya oo lacag u diro USDT gaas ay isticmaalaan. qaar waxaa jira Europe iyo Mareykan lacag ka soo diro ayna tageed USDT gaas oo isticmaalaan. marka waxaa la yiraahdaa waa degdeg xawaalad ahaan xataa waa loo isticmaali karaa la yiraahdaa. qof kastana wuu heli karaa mobile wallet samaysanaysa oo aad samaysan kara. midda kale waxay support gareeyaan decentralized ama DeFi, decentralized finance oo USDT gaas oo wax ku gadan kartaa coins adoo aadin Binance iyo waxaas aadin. waxaa kaloo loo isticmaali karaa e-commerce, yani in website wax uga gadato oo kale. website hadda waa jiraan bilowday oo e-commerce oo qofku wax uga gadan karo USDT-ga. waxaa marka qaabkan loo isticmaali karo waa xawaaladahaas DeFi-gaas, merchant payment oo kale, inflation hedge oo kale, yani waa loo isticmaali karaa xawaalado oo kale waa loo isticmaali karaa inaad wax ku gadatid ayada naftigeed waa loo isticmaali karaa. tan ugu la yaqaan waa Tether USDT oo Tether Foundation ay soo saartay. mid kale waxaa jirta la yiraahdo shirkad Circle ay soo saartay la yiraahdo USD coin oo Mareykan taasna way jirtaa. labadaas ugu waaweyn. midda oo maaragtay cryptocurrency oo decentralized waa DAI midana leeyahay aad looma yaqaana, laakiin Ethereum iyo cryptocurrencies kala back gareey. waxaa kaloo jira mid oo maaragtay gold ayadana figa dahab represent gareyso la yiraahdo Bax gold ma la yiraahdo oo la yiraahdo gold represent gareysa, laakiin ayadana aad looma yaqaano, aad looma isticmaalo. marka wax walba kulli faa'iidadaas aan soo sheegnay khasaarana way leeyihiin. khasaarada ay leedahay stable coins ama USDT waxaa ka mid ah horta centralization wax la yiraahdo. waa lacag oo bangi taala dowladda Mareykanka anytime ay tagtay bangigaas lacagta taale waxay dhigi kartaa waa freeze gareynay. marka haddii dowladda Mareykanka taa waa freeze gareynay maxaa dhici kara lacagta USDT-ga $1 ku base gareysan inay zero timaado ayaa iman kara. taas waa risk jira oo maaragtay maadaama ay tahay hal meel wax yaala ama bangiyo la yaqaan yaala oo la freeze gareyn karo. waxaa kaloo jira wax la yiraahdo debacking risk wax la yiraahdo risk ah in maaragtay hashan ay hoos uga dhacdo qiimihii ay joogto oo markuu arko qof walba inay hoos uga dhacdo. yani for example halkii USDT waxaa loogu talagalay $1 haddii timaado ka waran eber dhibic 8 haddii timaado yani oo 20 senti camal ay khasaarto. qof walba markuu isku dayaa inuu gado USDT-ga inuu gado uu ka baxo. taasna waxay keenaysaa marka inay hoos u sii daataa la dhihi karaa. dhowr jeera marka USDT oo kale ay xoogaa hoos uga dhacday $1 laakiin haddana kadib ay soo noqonaysay. kuwa kalena wayba lose gareeyeen oo waa baaba'een sida Terra algorithm stable coins ay leedahay oo kale. waxaa kaloo la yiraahdaa oo riskiga ay leedahay transparency issues, yani transparent maaha. lama oga maadaama ay yihiin waxaan wax bangi yaala
lama oga shirkaddan Tether Foundation oo kale inay hadda 80 bilyan oo dollar lacag u dhiganta inay hayso lama ogo inay iska samaystaan macquul ah oo ay tiraahdo maarag 80 aan hayaa in inta tira iska samaystaan macquul marka transparency issues wuu jiraa oo qof walba uu ka yara cabsanayo waxaa kaloo imaan karda oo laga cabsadaa oo riskiga inay dowladuhu weerar kusoo qaadaan maadaama ay yani doolarkii dowladihii ay lahayd loo isticmaali karo hadda Mareykanka oo kale wadamo badan oo waxaa jira uu cunuqabateyn saaray wadamadaas USDT ay isticmaali karaan marka maadaama ay taas tahay dowladaha imaan kara inay maaragtay xiraanba stable coinska USDC midaan leeyahay USDC ama USDC coin oo kale shirkadda soo saarto shirkad aad Mareykanka maaragtay awaamirtiisu raacda waaye qofkii loo sheegay adresskii loo sheegay la adresskaas xira oo qofkaas iskala way ka xirayaan lacagtaadii kugu jirta kalama bixi kartid marka ciladaas oo ay leedahay stable coinska ciladaha ay leedahay kamid ah marka waxaa la oran karaa marka kusoo gabagabeynaya stable coinska ama USDT-gan oo kale waa buundo isku xiraya traditional finance ama bangiyada caadiga ahayd iyo cryptocurrency adduunkan cryptocurrency isku xiraya oo bridge u noqon kara marka waxay ku siinaysaa faa'iidada ay ku siinayso waa inay stable tahay sidii dollarkii caadiga ahaa oo kale at the same time inaad suuqii cryptada ku jirto oo wax rabtid ku gadan kartid mar walba oo aad cryptada ku gadan kartid marka waxay ka mid noqotay qaybaha ugu muhiimsan hadda oo suuqa digital currencies-ka oo cryptocurrencies-ka ay noqotay intaas kusoo gabagabeynaya wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wixii su'aalaha commentiga noogu reeba mar walba aad mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu